waa dhiig-yacabyo u saaxiib ah kaarto iyo maskax furnaan. Kuma jirta qalbiyadooda wax yar oo naxariis ahi. Waxay laf dhuun gashay ku noqdeen dadyo badan. Waxay sheeganayaan inay soo booqdeen mar jannada, si ay dib ugu noqdaanna jannada. Waxay ku dhaqaaqeen ficillo aan maanka ama maskaxda bini'aadamka ku soo dhaceen xilligaas ama waagaas. Waxay taariikhdu u diiwaangelisay inay yihiin kooxdii argagixiso ee ugu horreysay soo marta adduunka, waana kooxdii lagu magacaabi jiray xashaashiyiinta. Waniga walaalkan Cabdimajiid, ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka ku soo biir, like-na mahadsanid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan maqalnaa daawaday oo dhageheena ka tira batay xilligan aynu noolnahay kelmadda ismiidaaminta ama argagixisada. weedhan oo soo hadal qaadideedu ku noqday mid cabsi weyn ku abuura dadyow aad u tiro badan, waxaana isla markiiba kusoo dhacaya marka aynu maqalno ereygaas argagixisa amaba ismiidaamin heerka dhibaato ee ay geysteen inta ay leegtahay dadyowgaasi. muuqaalkanan maanta waxaanu kaga hadli doonaa haddii uu alla idmo amaba ogolaado kow, bilowgii argagixisada amaba ismiidaaminta iyo ninkii gundhiga amaba asaaska u ahaa kooxdaas. laba, halka uu ka yimi magacan xashaashiyiinta. saddex, sida uu ugu qancin jiray dadkan inay kusoo biiraan amaba dadka inay kusoo biiraan ninkani kooxdiisa uu hogaamiyaha u ahaa. shan, qaybo ka mid ah dilalkii ay geysteen iyo kuwii ka fashilmay kooxdanba. lix, gabagabadii kooxdan iyo soo afjarideedii. waxay kooxdan soo ifbixideedu ahaa 11kii miilaadiga markuu sanadku ahaa, waxaana asaaskeeda uu noqonayaa kooxdan in lagu magacaabi jiray xasan as-sabaax. haddii aynu gudagalno taariikhda xasan as-sabaaxna, waxa uu ku dhashay magaalo lagu magacaabo Qum oo ku taala dalka Iiraan maanta. intaa kadib waxa uu qaatay oo uu bartay xasan as-sabaax madhabka ismaaciiliyadda, waxaana weegaas amaba xilligaas ahaa mid ku sugan dhulka Masar. waxa uu damcay oo uu doonay kadib barashadiisii madhabkan ismaaciiliyadda xasan as-sabaax inuu dib ugu soo laabto dhulka Faris oo maanta loo yaqaano Iiraan, si uu ugu fidiyo oo u baro madhabkan dadka. laakiinse waxa uu u kala qaybsamaa madhabka ismaaciiliyaddu laba koox oo kala raacsanaa laba nin oo la kala odhan jiray Nusayr ibnu Mustansir iyo Mustacli Billah ibnu Mustansir, waxaana ay ahaayeen labada nini walaalo isku qabsaday xukunka kursi aabahood ka dhintay. sidaas daraaddeedna ugu kala qaybsameen laba kooxood oo mid walba nin taabacsan yahay leedahayna amaba ku andacoonayso inuu midba midka kale kursiga xaq uga leeyahay oo uga mudan yahay. waxaana xasan sabaax ka mid ah dadkii taabacsanaa una andacoonay Nisaar ibnu Mustansir xaq u leeyahay kursiga amaba madaxtinimada la saaro. markii uu tegay xasan sabaax dalkaas Iiraan, wuxuu kala kulmay laba arrin oo u diiday inuu ku dhex fidiyo xasan madhabkii uu haystay ismaaciiliyadda magaalada gudaheedii amaba dhulkaas Faris gudihiisa amaba dalka Iiraan gudihiisii. labada arrin oo kala ahaa, arrinka koobaad ee u diiday xasan sabaax ayaa ahaa inuu ku dhex fidiyo dalkaas Iiraan madhabkii watay ismaaciiliyadda, inay dalkaas Iiraan gudaheeda ka dhex jireen kala duwanaansho caqiido. arrinka labaad ee u diidayna waa in dalkaas Iiraan ay ka talin jirtay dowladdii Salaajiqada oo ay cadaawad ba'an isu hayeen xasan sabaax maadaama uu ka mid ahaa dadkii raacsanaa Nisaar ibnu Mustansir. sidaas daraaddeedna waxa uu xasan sabaax u jihaystay qalcad ku taalay dalkaas Iiraan oo lagu magacaabi jiray Alamuut. qalcadan ayaa ahayd mid taabacsan Nisaar ibnu Mustansir, waxaana ay ahayd qalcadani mid ay adag tahay gelitaankeedu. waxaana ay sheegeen qaybo ka mid ah taariikhyahanadu inuu xasan sabaax markii uu gelayay qalcadan iska soo dhigay sheekh aan wax dhibaato ah la rabin. waqti yar kadibna uu laaluushay oo uu lacag aad u badan siiyey ninkii madaxda ka ahaa. sidaasna uu xasan sabaax kula wareegay xukunkii qalcadan oo uu gundhig ama madaxtooye ugu noqotay kooxdan argagixisada ah ee xashaashiyiinta. haddaynu ka jawaabno su-aasheenii labaad ee ahayd meesha uu ka yimi magacan amaba laga soo dheegtay, waxaa jira aragtiyo badan oo sheegaya meesha uu ka yimid magacyadani, balse waxaynu kasoo dhex xulanaynaa amaba kasoo dhex xulanay saddex ka mid ah. aragtida koobaad waxay odhanaysaa waxaa laga soo dheegtay magacan oo laga soo qaatay magaca xasaasan oo ahaa ninkii aasaasay kooxdan xashaashiyiinta ee xasan sabaax. aragtida labaad idina waxay odhanaysaa halka magacan kooxdani waxa uu ka yimi oo laga soo qaatay magaca afka Ingiriisiga ah ee Assassins oo macnaheedu noqonayo kuwii wax dili jiray, sidaas daraaddeedna xashaashiyiin lagu bixiyey. aragtida saddexaad ayaa waxay odhanaysaa asalka kelmaddan waxay u noqonaysaa kelmadda Assassin, waxaana uu noqonayaa macnaha ereygani kuwii ilaalin jiray qalcadda amaba qasriga. magacan xashaashiyiin oo keliya ma uu noqon midda keliya ee loo yaqaanay kooxdan. waxaa jira magac kale oo loo yaqaanay kooxdan kaas oo ahaa almalaaxida. ereygan oo isna macnihiisu noqonayo
kuwii aan ilaahba aaminsanayn. su-aasheena saddexaad ay ahayd sidee ayuu ugu qancin jiray dadka Xasan Sabbaax inay kusoo biireen gruubkiisan amaba kooxdiisan. waxa uu mid ka mid ah qoraayadii xilligaas noolaa oo lagu magacaabi jiray Marco Polo kusoo bandhigaya mid ka mid ah dhiganayaashiisii ama bugaagtiisii oo lagu magacaabo The Book of Sir Marco Polo inuu Xasan Sabbaax uu kusoo xerogelin jiray qofka uu rabo oo ugu dari jiray cabitaanka amaba cunto ka ay noqoto maandooriye qofka suuxinaya oo miir daboolsiinaya. kadibna inta la qaado ayaa la dhex geyn jiray meel ku dhex taalay qalcadii Alaamuud ee uu ka talin jiray Xasan Sabbaax. meeshaas oo ahayd meel aad loo farsameeyey aadna loo qurxiyey loona ekeysiiyey jannada oo kale oo ay joogaan dumar aad u qurux badan. intaas kadib marka ay soo miiraabo qofkii oo uu soo kaco ayaa waxa uu noqon jiray qofkii mid ku ashqaraara meeshan oo la nadaraandara oo uu shahwaadkiisa oo dhan dhargiyo. kadibna waxa maalmo yar kadib dib loo suuxin jiray qofkii oo la miir daboolsiin jiray una soo celin jiray meeshii uu joogay Xasan Sabbaax. sidaasna uu ugu soo ridi jiray dabinadiisa qofka uu rabo inuu kusoo biiro gruubkan amaba kooxdiisan, waxaana uu ku xidhi jiray qofka si uu mar labaad ugu celiyo dhulkii uu uga dhigayay jannadii oo uu fuliyo danihiisa oo ay dilaan cid kasta oo uu diro. haddii aynu gudagalno su-aasheena afraad jawaabteediina qaybihii ka mid ahaa dadkii ay dileen iyo kuwa ay ka fashilmeenba. haddii aynu ka horeyno kuwa ay dileen waxaa ka mid ahaa dadkii ay nafta dhaafiyeen ay dileen in madax ka ahaa Qudus ama Falastiinta maanta oo haystay ninkaasoo lagu magacaabi jiray Conor AD. waxaa kale oo gacantooda ku baxay nin ka mid ahaa wasiiradii dowladda Salaajiqada oo lagu magacaabi jiray Nidaamul Mulk, ninkaas oo ahaa nin haya mansab amaba title aad u weyn, iyo nin kale oo ka mid ahaa khaliifada Cabbaasiyiinta oo isna lagu magacaabi jiray Mustarshid. waxaana mid ka mid ahaa dadkii ay isku dayeen inay dilaan balse ay ku fashilmeen ninkii lagu magacaabi jiray Salaaxudiin al-Ayuubi oo ay dhowr jeer isku dayeen dilkiisa balse ay u suurtoobi weyday. ugu dambeyntii oo sii dheeraan hayaankii sii socodkooda kooxdan xashaashiyiinta sababtoo ah waxay cadaawad baahsan u qaaday dowladihii xilligaas talin jiray gebi ahaantoodba, hadday noqoto dowladii Cusmaaniyiinta iyo tii Faadimiyiintaba iyo dhammaan dowladihii hoos iman jiray intaas. waxaana soo afjaray kooxdii xashaashiyiinta amaba kooxdan xashaashiyiinta ciidankii Tataarka ama Mongooliyiinta oo hoggaanka waqtigaas u hayay ninkii lagu magacaabi jiray Holaako sanadkii markuu ahaa 1256 miilaadiga. waxaana uga dambeeyay Holaako oo mar labaad duulaankii ugu dambeeyay kusoo qaaday ninkii lagu magacaabi jiray Daahir Bibras sanadkii markuu ahaa 1273 halkaasna uu kusoo afjaray kuna soo gabagabeeyay dhammaadkii dhiig-yacabadanay. muuqaalkeena maanta intaas ku eegyahay. anigu howlaalkan Cabdimajiid oo idinkaga tegaya ammaano Allah.